أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waa idin sana walaalahay Soomaali meel baa ku nooshin walaal soo dhawaada walaal aad iyo aad ayaad mahadsantihiin commentigiina quruxda badanna idinkana khayr iyo fara badan oo wanaag iyo farxad ayaa idin rajeeya insha Allah dhammaantiin aad iyo aad ayaa mahadsantihiin walaalayaal holaha haddaa nagu cusubtiin please subscribe waa walaashin Amira marka maanta conversation ayaa iskala haddii ilaahay uu noo masaamaxo insha Allah marka nuur iyo nuurta ayaa sheekaysanaya. Do you often watch TV? Do you often watch TV? Haddaad maqashid often or often is the same waa isku mid so don't worry about it. You can say often inta badan waa you isticmaali kartaa but often sida right waa often okay? Do you often watch TV? Do you often watch TV? So mujeedid markaan dhahayo waa kala duwan yahay wax yar baad isku mid weyaan insha Allah si walba haddaa ugu hadasho waa lagu fahmaya. Do you often watch TV? No, I mostly watch something on YouTube. No, I mostly watch something on YouTube. Do you often read newspapers or magazines? Do you often read newspapers or magazines? Well, I prefer to read different articles online. Well, I prefer to read different article online. See halkan waxaan dhahaya article actually article waay laakiin article taas dadku u akhrinaya so labadaba waa isku mid weeye article or article inta waa dhigi kartaa. So I would like to congratulate you on passing the exam. I would like to congratulate you on passing the exam. Thank you very much. Thank you very much. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? With pleasure. With pleasure. Okay, I know my name, inshallah. Do you often watch TV? Do you often adigu inta badan ma TV baad fiirsataa? Do you often watch ma fiirsasho weeyaan TV adigu inta badan ma TV aad fiirsataa? No, maya. I mostly inta badan watch something waxaan fiirsadaa something wax on YouTube. YouTube-ka ayaan fiirsadaa. Something waa wax ayaan ka fiirsadaa YouTube-ka. No, I mostly inta badan watch waxaan fiirsadaa something on YouTube. YouTube ayaan something that means wuxuu noqon karaa wax walba ayaan ka fiirsadaa something wax to YouTube ayaan fiirsadaa. Do you often read newspapers or magazines? Adigu inta badan newspapers ma akhristaa or magazines? Newspapers or magazines? Magazines waxa journaaladaasayta oo beauty-ga waxyaalaha advertisement lagu soo suubiyo ayaa magazines kala dhahaa newspaperna waaba jaraa'idda soo baxda mar walba. Well, I prefer to read waxaan prefer means waa kala dalbanaysa waxaan jeclahay inaan akhriyo article online in aan online article waxaa la waxyaalaha dadka soo qoraan could be blogs could be anything waxa la qoro dhan oo qofku akhrisan karo iska article waxa la soo diyaariyay article weeyaan inta buuga qortay it could be article so well I prefer waxaan aan doorasho ka dooratay inaad online aad wax ku akhriso article online waxaan aan doortay macnaha aan ka doortaa magaziinka iyo maxaa newspaper waxaa ka doortay in aan online waa taqaanaan internetka an article inaan akhriyo. I would like to congratulate you on passing the exam. Waxaan kugu hambaliyeynayaa imtixaankii aad ku baastay imtixaankii ku guulaystay ayaan kugu hambaliyeynayaa. I would like to waxaan jeclahay in aan kugu hambaliyeeyo imtixaankii on you adiga passing the exam imtixaankii aad ku baastay. Thank you very much aad iyo aad mahadsan tahay. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? And macnaha bakeeri shaah ma rabtaa? Would you like ma jeclaan lahayd a cup? Would you like tan waxa weeye waa polite way iyo xoogaa qadarin weeye dadka lagula qofka kale ugula hadlo weeyaan. Would you like ma rabi lahayd a cup of tea bakeeri shaaha
ma rabi lahayd. With pleasure, that means with farxad leh. Yes, how with farxad macna aad baan u rabaa mean. With pleasure waxa waaye wanaag oo qofka loogu jawaabayaan waa farxad. Pleasure waa wanaag, happiness ku jiro soma. With pleasure, that means yes, waan rabaa intaa dhi. Yes, I would love to intaa dhi with pleasure haddaa tiri way kasii macaan tahay ma garatay. Marka walaal insha Allah cashirka wuu noo socda haddii la yiraahdo. Are you busy now? Are you busy now? No, I'm free. No, I'm free. Can you talk to me now? Can you talk to me now? Sure. Are you busy at the moment? Are you busy at the moment? Not really. What would you like to tell me? What would you like to tell me? How can I improve my English? How can I improve my English? I think you need to study regularly using a good resources. I think you need to study regularly using good resources. How can I improve my grammar? How can I improve my grammar? Watch some good videos in grammar and do some exercise. Watch some good videos in grammar and do more exercises. Let me read one more time. Are you busy now? Are you busy now? No, I'm free. I'm free. Can you talk to me now? Can you talk to me now? Sure. Are you busy at the moment? Are you busy at the moment? Not really. Not really. What would you like to tell me? What would you like to tell me? How can I improve my English? How can I improve my English? I think you need to study regularly using a good resources. I think you need to study regularly using good resources. How can I improve my grammar? How can I improve my grammar? Watch some good videos in grammar and do more exercises. Okay, well, let's make inshallah. Are you busy now? Are you busy now? adigu hadda mashquul miyaa tahay? Are you busy now? Haddaba mashquul ayaa tahay? No, maya, I'm free. waxaan ahay free ayaan ahay hadda aniga mashquul ma ihin. Can you talk to me now? Can you talk to me now? hadda adigu mila hadli kartaa. Can you talk to me? adigu can you ma awoodaa talk to me inaa ila hadshid now? adigu hadda inaan la hadshid ma awoodaa? Sure. Ha, waa hubaa. Sure, waa hubaa. Are you busy at the moment? adiga waqtiga hadda aan hadlayo mashquul maata. At the moment waqtiga markaa lagu jiro. Are you busy at the moment? waqtiga lagu jiro mashquul maata. That means waqtiga la hadlayo. hadda haddaan ku dhaho are you busy at the moment hadda aniga ku dhaho that means waqtigan hadda aad joogtay aan kula hadlayo mashquul miyaa tahay ayaan ka wadaa ma garatay. Not really. maya, xaqiiqadii maya. What would you like to tell me? maxaad rabtaa inaad sheegto? What would you like to tell? maxaad jeceshaa inaad ii hesho? That means maxaad jeceshaa inaad igala hadashid oo kale weeyaan. What do you like to tell? maxaad jeceshaa inaad ii sheegtid? How can I improve my English? sideen Englishkayga aan ku kobciyaa? How can I improve my sideen English ku kobciyaa? I think waxaan u malaynayaa you need inaad u baahanta to study regularly. in aad regular damin joogta ah oo maalin walba regularly si joogta ah using adigoo isticmaalaya good resources. Good resource waxaa laga yaabaa waxay tahay waxa meesha ka helaysid. ma fahmino? waxa markaad Ingiriis baranaysa xagee ka baranaysaa? bugaag baad akhrinaysaa, internetka YouTube sidan oo kale YouTube baad fiirsanaysaa. maxaa yiraahdaa waxyaalahaas oo kale oo aad wax ka faa'iidayso dhan resourceskaada ayuu noqonayaa. ma garatay? marka resource waa meesha aad waxa ka helaysid insha Allah. So how can I improve my grammar? Grammarkaygana sideen aan ku kobciyaa, ku improve garayaa? Watch some good videos. waxaad fiirsataa video fiirso in grammar or grammar and do some more exercise. video grammarna fiirso maxaad subisaa exercise na sub insha Allah. marka waa laydin sheegay maanta saa Ingiriis ku improve garayn. wax walba waa fara ku hayn. wax waa inaad qortaa
sometimesna waxaa fiican inaad iska duubto xataa adigoo hadlaya oo warqada qaado waxaan xasuusta aabbe allah waxaa wuxuu dhihi jiray markaan ingiriiska akhrinayo kor u akhriyaa codkiina ina adigu ismaqashid waayu dhihi jiray waa xasuusta allah naxariista runna waa marka wax akhris ina ismaqasho waayo you have to read out loud si kor u akhri ma gartay xataa iska duub xataa dadka xishoonaysa xataa adigoo qol kaliya ku jira ama adoo banaanka jooga iska duub headphoneka gasho adoo wixii ku celinaya iska duub ku celi wax ba lagu celiyaa way fududaanaa insha allah ma garatay qof ku dhalatay malaha qof wax kaga badiyin malaha qof walba waxa weeyaan dadaal ku celin waa insha allah ha ka caajisina wax haddaa rabtid inaad heshid oo rabtid inaad ku fiicnaatid you do more continue mar walbo exercise suubi qor wixii sii qor fahantay saas ayaa masha allah wax lagu bartaa insha allah walaa cashir kunoo socda hadii la yiraahdo marka walaalayaal raalli ah maanta wuxuu egta codkayga inuu hurdo ku jirto caajis ku jiro insha allah mar dhawaan soo kacay waqti xunaan seexda maanta aad ayaan u daalanaa marka waqtiga aan jiifan lahaa ayaan hurdo ka kacay inta waqtiga aan seexan lahaa waan insha allah marka ka raalli codkayga hadduu hurdo ku jiro wala insha allah marka walaalayaal okay waa casharkii aan noo socda how can I improve my listening skills you need to listen more how can I improve my speaking skills if I were you I would find a speaking partner have you been aboard several times when were you aboard last time last year have you been in America not yet okay how can I improve my listening skills you need to listen more how can I improve my speaking skills if I were you I would find a speaking partner have you been aboard several times when were you aboard last time last year have you been in America not yet okay how can I improve my listening skill sideen aan u kobciyaa dhagaysigayga waxaa laga haween English barashadii aan ku jirnaa moogtahay sidee ayaan dhagaysiga u kobciyaa markaas waxaa la you need to listen more in aad marwa badan aad dhagaysatid ayaad ku kobcinaysaa how can I improve my speaking skill hadalkaygana sideen aan improvement u suubiya amaan u kobciyaa if I were you maxay macnaha haddaan adiga ku ahaan lahaa I would find waxaan raadin lahaa a speaking partner qof macnaha aan la hadlo speaking partner means qof aad Englishka practice ku wada suubisin speaking partner qof aad practice alla suubisid means labadiin English wax baranaayeen ama qof English yaqaana in aad kula hadashid fahamtay inaad raadisid fahamtay if I were you haddaan adiga ahaan lahaa I would find waxaan raadin lahaa speaking partner qof oo aan la kula hadlo ayaan raadin lahaa have you been aboard weligaa macnaha aboard ma aad dibadda ma aaday marka laga wado wadamada Ingiriis ka hadlay ayaa laga hadlayaa ayuu aboard macnaha wadanka joogtid ma ka tagtay oo aboard ma tagtay several times dhowr jeer ayaan tagay when were you aboard last time markii kuugu dambeysay last time oo aad baxday goormay ahayd last year sanadkii hadda lasoo dhaafay have you been in America weligaadu America ma tagtay not yet maya weli ma tagin how can I improve my listening skill sideen u kobciyaa dhagaysigayga you need to listen more inaad dhagaystid wax badan how can I improve my speaking skill ku hadalkayga sideen u kobciyaa if I were you haddaan adiga ku ahaan lahaa I would find a speaking partner waxaan raadin lahaa qof aan kula hadlo qof partner macnaha aan kula sheekaysto Ingiriiska ayaan raadin lahaa have you been aboard adigu dibadda ma aaday
several time dhowr jeer ayaan baxay. When were you abroad last time? Goormaa kugu dambaysa oo baxda? Ugu dambeyntii aad baxday goormay ahayd? Last year, sanadkii hadda lasoo dhaafay ayaan baxay. Have you been in America? Weligaa adigu America ma aaday? Not yet. Weli America ma aaday. Marka insha Allah walaal intaasaan noogu ekeynaya. Khayr iyo caafimaad ayaan isku ognaa insha Allah. Maxaa dhamaantina casha wax kale idinku daraan raba laakiin waqti uma helin insha Allah iga raalli ahaada. marka walaali waa kas gaarsiin khayr baa idinku ogaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.